السلام عليكم خيارتي شرفت لك سؤال وهذا janaalka Haldor Official oo uga barateen barnaamijyo xiiso badan. Maantana halkan waxaan ku soo qaadan doonaa caabuqa loo yaqaan coronavirus. Waa maxay novel coronavirus ama caabuqa xalfaafka wadnaha? Caabuqa xalfaafka wadnaha 2019 ee coronavirus waa virus jirka ku dhaca oo dadka ku faafay laga soo bilaabo December 2019. Khubarada caafimaadka ayaa walaac ka qaba waayo xog badan lagama hayo fayraskan cusub wuxuuna keeni karaa xanuun daran iyo hargab ku dhaca dadka qaar. Sidee ayuu ku faafaa caabuqa xalfaafka wadnaha? Khubarada caafimaadku waxay weli baarayaan xogta faahfaahsan ee ku aadan sida caabuqan cusub ee neef-mareennadu ku faafo. Caabuqyada kale xalfaafka waxay ka soo faafaan qof ayagoo dadka kale u gudba. Siyaabaha cudurkani ama caabuqani uu ku faafo waxaa ka mid ah hawada marka qofku uu ku qufaco iyo markuu hindhiso. Dadka isku soo dhawaada sida taabashada ama salaanta gacanta la isa saaro. Taabashada shay ama meel fayrasku ku yaalo kadibna la taabsiiyo afka, sanka ama indhaha. Marar dhif ah taabashada saxarada. Ilaa intee ayuu daran yahay caabuqa xalfaafka wadnaha? Khubaradu waxay weli baarayaan xaddiga xanuunka ka dhasha caabuqa xalfaafka wadnaha. Kiisaska la soo sheegay waxay u dhexeeyaan xanuun daran kuwaasoo la mid ah hargabka caadiga ah ilaa hargab daran kaasoo u baahan isbitaal in la dhigo qofka. Ilaa iyo hadda waxaa la soo sheegay inay xanuunkan u dhinteen inta badan dad duqow ah oo horey u qabay xanuuno kale. Waa maxay astaamaha fayrasku? Dadka laga helay caabuqa xalfaafka wadnaha waxay soo sheegeen astaamo ay ka mid yihiin muddo kooban oo 2 maalmood ah ama muddo dheer oo dhan 14 maalmood kadib markii fayrasku ku dhacay. Waxyaabaha ay soo sheegeen waxaa ka mid ah qandho, qufac, neefta oo ku adkaata. Halkaasna waxaa inoogu eg barnaamijkan uga hadlaynay caabuqa coronavirus loo yaqaan. Fadlan janaalka dadka cusub tahay subscribe, like, and share garee. Aad iyo aad mahadsantihiin.